ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalahayga qaaliga kusoo dhawaada channelka Surubiyan maanta waxaan idin la qaybsanayaa quraac yar oo aad iyo aad taqaana u fudud aadna iisu maasha Allah tabaarakalla waxaan haystaa ukunta waxaan kusoo shubanayaa baaquli ama shaygan gudan baaquli aan kusoo shubanayaa insha Allah waxaan kusoo darsaday wax yar oo caano waxaan kusoo darsanayaa haddii Ilaahay yiraahdo cusbo ayaan kusoo darsanaa wax yar oo cusbo ama salti ayaan kusoo darayaa insha Allah waxaan ka sameyn doonaa quraac yar oo aad u fudud aadna iisu daawasho wacan waxaan kusoo daray ee kale waa filfil shiidan ayaan kusoo daray kadib isku qasayaa si fiican isku qasayaa intaas kadib waxaan dabka soo saaranayaa maqliga aan bildaawada aan ku dubi lahaa waan soo saartay waxaan ku shubtay wax yar oo saliid ayaan ku shubtay ukuntii baan mataqaanaa kusoo shubayaa markuu ii kululaado haddii Ilaahay yiraahdo hadda wax yaraan sugay insha Allah hadda waxaa ii soo kululaaday birdaawada dabka ii saarnayd marka waxaan kusoo shubanayaa ukuntii aan soo qasay qayb ka mid iyada dhan kuma soo wada shubayo qaybaan reebanaa qaybta kalena sida aan u sameeyo waa ina tusayaa tanna waa kusoo shiftay wax yaraan sugayaa dabku inuu aad u dheer yahay maaha oo ay ukuntu ka gubato tartiib dab yar oo meel dhexaada ayaa loo baahan yahay marka waxaan sameynaa inaan mataqaanaa ukuntii markaan ku shubay maqligii aan cabaar yar sugo markaan wax yar sugo waxaan soo qaadanayaa rootiga slice-ka ayaan soo qaadanayaa saas mataqaanaa u saaraa dhinaca kale aan u gedinayaa insha Allah waa isla socon waa kaasa rootiga saaraya wax yaraan sugayaa waxaan sameynaa inaan insha Allah aan gediyo haddii Ilaahay yiraahdo waa kana hadda waan sameynaa waan gediyay waatana ukunta dhinaca quruxay ka soo noqotay way soo guduudtay maasha Allah tabaarakallah quruxay soo noqotay waa kaasa dabku saa inii sheegay aad uma kulula aad uma dheera amiin hoogaa waxaa waaye dab dhexdhexaad aan mataqaanaa ukunta digli ka gubanaysa dad dabka ku dheeraysid marka waxaa waaye dabka xoogaa yaraan u gaabiyay hadda waxaa kusoo darsanayaa waa cheese alaala cheese-kii adiga markaas aad jeceshahay oo haysatid ayaa mataqaanaa ku darsan kartaa quraacdan waxaa waaye family-ga dhan way enjoy gareynayaan waa quraac yar oo fudud ciyaalka iyo xaajiga dhammaan maasha Allah tabaarakallah waaye waa quraac yar oo aad u fudud marka laba qaybood aan ka tusaaya insha Allah saan u sameynaa haddii Ilaahay yiraahdo waa kaasa ukuntii baan waxaan ku shubay cheese aan ku shubay tomato sauce-ka qofka jecel waxa guudana ku daray ama ketchup kadib waxaan sameynaa saana u soo dubaa haddii Ilaahay yiraahdo ukuntii iyo rootigii hal mar isku dubtay sandwich yar oo easy quraac yar oo fudud oo aad iyo aadna u macaan mataqaanaa aadna u fudud oo waqti badan aan ka qaadanaynin dhaqsana ilmihii iyo xaajigeena aad siisay quraac yar oo mataqaanaa maasha Allah tabaarakallah marka waa kana quraacdeeni saaka in la qaybsanayo maasha Allah tabaarakallah waaye ilaa intaan haysana si aan kala noo siyaadi marka waa kana rootigii iyo ukuntii dabka ii saaran yihiin dhinaca kale ayaa u gudinayaa hadda Ilaahay yiraahdo waa kana waa gadiyo maasha Allah qurux soo guduudata maarta bas diyaar waay hadda waa ka soo qaaday waana kala jarayaa waa kaasa quraacdaas quraac yar oo mataqaanaa maasha Allah tabaarakallah waa kaasa waqti badan ka qaadanaynin ukun iyo rooti isku jirta hal mar la isla sameeyay saana ku soo diyaariyay waa kaasa cabitaanka u qaado waxyaalaha waxaad jeceshahay marka adigu aad ugu tala gashay inaad ku cabto ku cabaysaa waa kana qaybtii koobaad saana ku soo diyaariyay qurux maasha Allah tabaarakallah waaye qaybtii kale ayaan bilaabeynaa qaybta kale ukunta igu jirta baaquliga waxaan ku shubanayaa basbaas basal iyo kamsar caleen aan soo jarjaray cusbadeeda iyo filfisheedana way ii leedahay oo uma baahna inaan cusbo kale iyo filfil kale aan mataqaanaa aan ku daro intaanaan ku darayaa waa haddana waxaan sameynayaa waan isku qasayaa kadib sidii oo kaleeto ayaan ayadana waxaan rabaa inaan usoo geliyo rootiga haddii Ilaahay yiraahdo waa kana birtaawadii baan haddana iskula imaanay ama maqligii maasha Allah
waa kusoo wada shubtay. qof walba dhinac qaabku u jecel yahay ukunta u samaysan kartaa, laakiin waa kana quraacdan waxaan ku dhahay waa quraac yar oo macaan maasha Allah tabaarakallah ilmaha hadii basbaas jeclaan tii hore aan sameeyay ee u sameynaysaa xaajigay adiguna sidaan oo kale hadii aad jeceshahay ayaad samaysanaysaa. marka waa kaas maasha Allah quraac yar oo macaan oo fudud oo waqti ka qaadanaynin baad ka siinaysaa. dhinac waa saaraysaa rootiga, dhinac kale ugu gadinee saa qoyaankeeda ukunta inuu soo qaato ayaa mataqaanaa la rabaa rootiga sana u gadinee. marka waa kaas dhinac dhiga si fiican isugu samaysaa, isugu aadinaysaa inayna ka kala dheeraan. inay waxaa la rabaa dusha inay hadhow iska soo saartay si tii hore oo kale. kadib hareeraha ukunta ka taala haddii ay kusoo gaaraysaana ugu soo gadinee labada dhinac ukunta ka taala waa kusoo gadinee. haddii aad kusoo gadin karna problem ma laha, waa ayada dhanaaba gadinaysaa maaho. dabkana saan ku sheegay waa dab normal oon aad iyo aad u kululayn. marka waa kana dhinaca hoose way kasoo bislaatay, waxaan rabnaa inaan mataqaanaa aan dhinaca kale u gadin haddii Ilaahay yiraahdo. qurux maasha Allah caraf iyo qurux buu isku darsatay iyo macaan kaal iska arag waay. hadda waxaan kasoo darsanayaa waxaan aan soo saarayaa waa cheese-ka mozzarella oo sidaan u samaysan. cheese alaala cheese-kii marka ay haysatay haddii aadan haysanin oo ma baahnid kaligeed waad cuni kartaa. marka waa kaas cheese-kaasaan soo saaray wax yar oo kale oo kalaan oo kusoo daraa cheese-ka kale ee normalka kana waa cheese kale laba cheese oo kala nooc waaye. kan wax yar uga baahanahay wax badan u baahnay. waa kaas maasha Allah soomaha qurux kaal iska arag. hadda waxaan ku shubayaa wax yar oo soy sauce sorry waxa waaye waa burger sauce aan kusoo tirsanaya. burger sauce yar aan kusoo tirsanaya waa mayonnaise oo kaleeto waaye. burger sauce kala dhahaa maqaamaha kale marka sida mayonnaise oo kale waaye. waa kaas rootigii waa soo gadiyay. sandwich-ka waxaan ku dhahay isku soo haad waaye, easy sandwich waaye waqti badan ka qaadanaynin. quraac waa ka dhigan kartaa, casho waa ka dhigan kartaa maasha Allah tabaarakallah waaye. waana wax fudud waana wax macaan waqti badan ka qaadanaynin, taagni badan aad taagnaanaynin. marka waa kana saan usoo gudubtay labada dhinac saana loo gududinayaa maasha Allah tabaarakallah waaye. qurux ilaadaan siino siyaad intii aan haysanin si aad quraacdan fudud runtii aadna u macaan tahay. marka wixii wax macaan oo hadana fudud oo mataqaana waqti badan ka qaadanaynin xagee laga helaa. ka faa'iideyso quraacdan uga faa'iideey family-gaaga iyo carruurtaada iyo xaajigaaga dhamaan ka faa'iideysta. waa kaas qurux rootigiisaan usoo dumay qurux kaal iska arag. kadib waa kana sidii oo kaleeto waa kala jaraa iyadana maasha Allah tabaarakallah soomaa. walaalahayga marka waxaan idin la qaybsanayay ukuntaan iyo rootiga mataqaanaa la isdhexgelinayo oo la isku soo dubayo one time. marka waa kaas arag qurux maasha Allah soomaa maasha Allah tabaarakallah waaye. waa quraac yar aad iyo aad u fudud aadna u macaan in sheegay. marka quraacdan idin la qaybsanayay hope inaad ka heli doontiin kana faa'iideysan doontiin idinka iyo family-giina carruurteena dhamaan aad ka faa'iideysan doontiin. aad iyo aad u mahadsantihiin. waa kaas saxanka soo saaranaya waa kaas quraac cajiib ah maasha Allah tabaarakallah aad u mahadsantihiin walaalahayga. quraacdaas quruxda badan ee fudud ee waqti badan ka qaadanaynin ayaan la qaybsanayay inaad ka heshaan rajeynaya. idinkana aad taqaanaa tijaabin doontiin carruurtiina uga faa'iideyn doontiin. aad iyo aad u mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaadba sida quruxda badan ee mar walba aad noola joogtiin noona daawanaysiin waa ku mahadsantihiin walaalahayga. haddii quraacdan aad ka heshay ama casho ka dhigo aniga quraaca ii ahayde soo tijaabi insha Allah lana wadaag asxaabtaada haddii Ilaahay yiraahdo. waxaan naga ilaawin haddii aan ugu cusub tahay subscribe-ka inaad tirahdid gambaleelkana aad fariisaa ula socoto wax walba aan soo galno. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.